بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسترا فيتوريا سيمبر خاياش جيرك سدحد ملبا شوكتين وعام إمن كداونا يوكو قصلي لايف و بيناها وين مثل عربي رهان وكتري وكسو هاللي دولة دي حسن غير ودسي كاي ما أنتو حواي نبت التعلو حنكو قصلا ورتو عيالكي يراوا اسكا شعترين ايانو عيالكي با سياسات كهدليو خبير كهدليو يغانا خبير كدسن دولدا لوgu soo dhibsayo power sharing 4.5 waa khalad horto laakiin waqtigii ayaa saac noqday dowlad qabiil lagu soo dhisayna horumar ma keento iyo xukun qabiil lagu qaybsadayna horumar ma keeno wax minority la dhaho horto ma jiraan Soomaali waa mid waxaa horumar lagu keeni karaa dowlad wanaag oo ku salaysan good politic oo ku salaysan good technology oo ku salaysan good culture oo ku salaysan iska dambeyn iyo ismaqal iyo gorolba ay shiraan Xasan Kheyre is not qualified asaga mansabka loo dhiibo haddii maanta dowladda يسرى لودي لها more trust for هانله إسلامتا يسرى بانك كشخين جستي ملايكن يوميربو إسلامتا she's more clever than رئيس الوزراء حتى فرماجوك clever سنت هذه لسياسين مركو حلو بهاي دولة quantity و quality له دولة وحلو باهي مانتو أباراه كلي مهاري what is the solution ودنك هذه دي بسويسين تاي هذه تاي دستور كان 4.5 مركا ما في ليو إنه خير الدولة دا وكركينك وحن دولينا دولة تتكلم حسابنا وحن كدولينا حتى مدحوينا فرماجو نمكن الشباب كهاي حسن دايرة ويسي دهان maanta baastada iska cunayo guri iska fadhiyo ciyaalkii dhameeyay shacabkii suuqyada ku laayay ninkaan qabiil lagu daayay maaha waa in maxkamad la soo istaajiyo la xisaabiyaa marka we need dowlad wax xisaabisan u baahana dowlad waxaan u baahanahay nimankan tuugta ee guryaha gatay dowlad xisaabisan u baahanahay dhoo intee ka keentay lacagta tarsan intee ka keentay dhoo Umar Cabdirashiid lacagta waxaan u baahanahay dowlad wax xisaabiso haddii la helin dowlad aan siyaasiyiintan joogtay calimahadi oo sundaadi iyo kulligoon xisaabin joog meeshii joog weeyaan adinkuna ina shaqaystiin aad timaadeen dowladdan nin walba ka soo shaqeeyay dowladihii dambe gidib waddanka ugu gurtay iyadoo dadka dhibaataysan marka waxaan u baahannahay dowlad dadka la xisaabtanta weliba dowlad la xisaabtanta siyaasiyiintiinan diasporada ma shacabka waxba ma haystaan masaakiin wa shaqa xataa ma haystaan marka waxaa loo baahanyaa dowlad siyaasiyiintan tuugta ah xisaabisa min gobol ilaa hoose ay maxkamad jinaa'iya tagto kii baasboor ajina wato kii wax walba adduunka ka dacweeyaan weeyaan marka taasaa loo baahanya waxaa loo baahanyaa legal farm in la suubiyo abukaatiyaasha inay isku tagaan iyo dowladda ay wax cad ka yeelaan dadkii sunta ku daadiyay xamar maanta xamar milyaneerka ku waa in nin walba la xisaabiyaa taasaan dowlad u naqaana haddaan la xisaabtamin Xasan Kheyre waaba very smart refugee markuu ka shaqeynayo garanaya si wax loo xado gaal wax xada garan weys so now masaakiinta ummadda ahay waxna uma celinay marka waxaan doonaynaa dowlad dadka la xisaabtanta ayaan doonaynaa hasta Victoria sempre ka qayash ma salaam cunuga carab waa ku qosla markaan dhageysto ee ku naqnaqay waxa duu ilaahay yiraahdo waxaan soo gudbinayaa dowladdii uu soo dhisay Xasan Kheyre hadduu ilaahay yiraahdo waxaan soo gudbinayaa dowladdii uu dhisay Xasan Kheyre oo saa loo qabsaday kulle un charlintaan kaasi waa nin iska hadlay ninba maaha nin lama oran karo wuxuu yahay male waa ciyaalkii mooryaanta ee maanta qaxootina Astra Victoria sempre ka qaash mac salaama